Cayilka iyo buurnaantu waa in qofku uu yeesho baruur saa'id ah oo ka badan inta loogu talagalay, taasina waxa ay caqabad ku tahay caafimaadka qofka. Body Mass Index (BMI) waa halbeeg si fudud loogu cabbiro heerka culayska jirka iyada oo la isu eegayo miisaanka iyo dhirirka weight for height. Haddii si kale loo yiraahdana, waa culayska qofka oo loo qaybiyey dhirirkiisa oo la laba jibaaray. Habkani waxa uu sahlayaa in la ogaado in qofku uu cayilkiisu yahay mid sare (overweight) iyo in uu gaaray heer uu noqdo caafimaad darri, markaasi oo loo yaqaan obesity. Waxa uuna u horseedi karaa cudurrada lala noolaado ee waqtiga dheer jira ee loo yaqaan chronic diseases. Haddii BMI-da qofku tahay mid ka badan 25, qofkaasi waa overweight, waxa uuna leeyahay cayil ka badan inta loogu talagalay. Haddiise ay ka badan tahay 30, waxa ay caddaynaysaa qofkaasi inuu gaaray heerka halista ah ee loo yaqaan obesity. Inkastoo ay jiraan arrimo fara badan oo qayb ka qaata in qofku cayilo, sida habdhaqanka qofka, hiddaha ama dhaxalka, dheecaannada jirka soo deeyaan iyo falgallada jirkeenna ka dhaca, haddana waxa ugu muhiimsan ee cayilka keeni kara waa in uu qofku qaato tamar ka badan inta jirkiisu u baahan yahay inuu gubo si uu u joogteeyo shaqooyinka maalinlaha ah ee jirku uu qabto. Markaasi oo uu tamarta dheeriga ah jirka isku dayo inuu kaydsado, waxaana loo kaydiyaa qaab baruur ah iyada oo lagu ururinayo qaybo jirka ka mid ah sida caloosha, barida iyo waxjarrada. Inaad cuntahay cuntooyinka aan caafimaadka lahayn unhealthy foods sida cuntooyinka fudud fast foods iyo cabitaanada fudud ama soft drinks waxa loo yaqaano oo ay ku badan yihiin tamarta iyo sokortu, waxa ay keenaysaa halis aad ugu jirto inaad cayisho. Sidoo kale, in aadan jirka ka shaqaysiinin oo uu fadhiga iyo jiifka kuu noqdahay caado waa khatar weyn. Bacdama uu jirku isticmaalaynin tamar badan, wuxuu jirku isku dayayaa in uu cunto kasta oo aad cunto tamarta laga helahay u kaydiyo qaab baruur ah, waana qaabka ugu badan ee cayilka dadka uu ugu yimaado. Dadka ka shaqeeya xafiisyada, darawallada iyo dhammaan dadka ka shaqeeya shaqooyinka lagu qabto fadhiga ee aanan u baahnayn tamar fara badan waa inay sameeyaan jimicsi joogto ah si ay uga badbaadaan cayilka. Dadka qaar waxa ay u dhasheen buurnida, waxaana ay ugu timaadaa qaab dhaxal ah ama jiiniska ama hidde-sidahooda ayaa waxay sidaan defects ama jirrooyin keena cayilka. Sidaa daraaddeed, dadkaasi waxa ay u baahan yihiin talo dhakhtar inay raadsadaan. Haddaba, maxay tahay dhibaatooyinka iyo cudurrada uu qofka buurani halista ugu jiro? Dadka obiiska ah ama buurnida heerka jirrada ah gaartay qaba waxa ay halis ugu jiraan cudurro dhowr ah oo ay ugu horreeyaan cudurrada ku dhaca wadnaha, khaasatan cudurka dhiigkarka. Sidoo kaleeta, heerka dufanka dhiigga ee cholesterol-ka ayaa noqda mid abnormal ah amaba si aan caadi ahayn u bata. Markii ay isbiirsadaan labadaasi arrinna, waxa uu qofka halis ugu jiraa cudurka faaliga ee loo yaqaan stroke. Sidoo kaleeta, dadka burburani waxaa ku yimaada xaalad loo yaqaan insulin resistance, markaasi oo unugyada jirka ay diidaan aqoonsiga maadada insulinta oo laga soo deeyo ganaca ama xubinta pancreas. Maadada insulinta waxay muhiim u tahay xareynta sokorta dhiigga ku jirta, balse marka jirku uu diido in uu aqoonsado insulinta, qofka waxaa ku dhaca sokor ama cudurka loo yaqaan macaanka diabetic mellitus type-kiisa 2 ama 2. Sidoo kale, dadka burburani waxaa culayska badan aawadiis qalqal ku yimaada oo culays xad-dhaaf uu fuulaa kala-goysyada, waxaana dadka markaasi soo wajaha cudurro dhowr ah oo ku dhaca kala-goysyada oo ugu muhiimsan yahay cudurka loo yaqaan osteoarthritis oo ka mid ah cudurro badan oo kala duwan balse Soomaalidu ugu yeerto magaca rheumatism. Sidoo kale, dadka burburani waxa ay halis ugu jiraan waxa loo yaqaan sleep apnea, taasi oo ah marka qofku uu jiifo in si isxigxigta ay neeftu istaagto haddana dib u bilaabato, taasi oo ah xaalad khatar oo ay ka imaan karta dhimasho.